anigoo ah Abubakar Cabdulqaadir Sakhaawudiin oo aas-aasay xisbiga SYL dhalay oo la yiraahdo Cabdulqaadir Sakhaawudiin sida aad ka warhaysaanba haddii Ilaahay ka raali noqdo ayaan waxaan rabaa in aan ka sheego meeshan labadoo kalima oo haddii Ilaahay ku roon yahay oo isaga qusaysa ama Soomaaliya oo dhanba qusaysa taasoo ah ayagoo dhalinyaro ah ayay isbiirsadeen way badnaayeen haddii Ilaahay ku roon yahay waxay ku soo hareen 13 qof ayagoo ah ayaa ku soo haray insha Allahu tacaala 13kooda waxay yacni macnatay niyeysteen Soomaaliya markaasay tii waxaa ku jirtay waxa la yiraahdo yacni macnatay gacan gaaleed gaal gacantooda ayay ku jirtay waxay yacni markaasay tii ay istuseen in ay yacni ayaga markaasay tii ay intii ay tabartooda ay tahay يعني معناتها إن وهالجمان أو حرنما بوحدة الصومالية أي أصول سعران تدحي توان كوضا وكويشيين مركاسيتي حوق حانتي وحلالا وحي أي مركاسة حاسين واي أفورين بل يعني معناتها وحاجر يعني دك كالي oo Soomaalida ka mid ah yani ayay yani macnaha ay maalgelin hatta ay weydiisanayeen naagaha yani waxay ka furteen yani ayagoo raali ah baaki dahabkii u xirnay muriidii iyo wixii yani u xirnaa ayay ka furteen si ay markaaseeti ay guul u gaaraan marhaban ayadoo ay taasi tahay Ilaahay waa ku garabsiiyey qorina ma haysanin ayaga haddii Ilaahay ku roon yahay qorigooda wuxuu ahaa dhagax iyo tuurey iyo haddii Ilaahay ku roon yahay gamuun ay yani ay u haasteen iyagoo saas ayaa Ilaahayna ka guulsiiyey yani gaaladii haddii Ilaahay ku roon yahay koobka shaahi ayagoo ayaan waxba haysanin koobka shaahi 13kooda way wada cabaayeen way is siinayeen wax la yiraahdo kana qabiil fulaan iyo kana reer hebel midna ma jirin raali ay iska ahaayeen qaar ayaa jiray sigaar cabaayay xabada sigaar way wada cabaayeen raali ay isaga ahaayeen marka haddii Ilaahay ku roon yahay horta wixii ay markaasay niyadooda ahayd Ilaahay waa uu gaarsiiyey xornimo ay ku heleen yani maanaata alxamdulillah yani qaarkooda yani aniga hadda for example haddii ka soo qaado Cabdulqaadir Sakhaawudiin waxaan u maleynaa 3 sano miyaa ay leeyahay noolaa aas-aaska markii leegad ay aas-aaseen 3 sano ka bacdi waa uu xijaabtay اسمع أن أرك أنا أبيه مركي أو جيريوناي يعني معناته تعالوش أيسيج تجي أو شيك أهلا وهستان ما يعني أركتي ما يعرفش يجمعتين استغفر الله وان يعني محي إسلام أو أنا أيي يقو آدن أيام مركزيتي ويل أي شيء أو أصلا يعني معناته إسلامتنا وعاقبة أسجى أذيركي سخوا أبي أذيركي سخوا وحن أبكي ذاك هيا يعني إني يعني أسوء أرداد أو يمي جورجا يعني أذير بيها أذيولا كوس سماها أنا ويلا لإيدلي أنا جوار لنا لا سوي تجي لكن يعني ننوح جرت ما أهين aniga horta hal gawar ay ila dhalatay hasha gawarna ayadoo yar ay xijaawatay oo aniga leeb hadda ifka
يعني إذا لقول جرو أي حجابة قودة مرحبا أبنا يعني معنا تا فكرة أو يعني ناك لا شيكيستو أو ربما مدهين waxay ahayd fikradiisa yani macnata siyaasadan iyo waxaanati ay isku dhex jiray sidee yani maxay ahayd Soomaaliya ay u heshaa xornimo buuxdo sidee ayada isu maamushaa ayuu